Taylor Sabasinas waa gabar 26 jir waana dilaa gabi ahaan baanan ka niyad jabin ficiladeeda foosho xun. Kaamirooyinka ayaana qabtay iyadoo iska dhex mushaaxaysa farxad darteed inta lagu guda jiray maxkamadeynteeda dilka. Laakiin tafaasiishan naxdinta leh ayaa ah cadeymaha aanan dhamaystirnayn ee kiiskan xumaanta badan. Balse Taylor ayaa lahayd wajiyo badan oo qarsoon, kuwaasoo ay dhiig badan ku daadisay sanado ka hor. Hase ahaatee indhaha caalamka oo idil ayaa qabtay kadib markii ay dishay gacaliyaheeda. Sidaa darteed yay ahayd Taylor, maxayse ahaayeen dhacdooyinkii ka dambeeyay maxkamadeynteeda? Balse intaasoo idil waxaa kasii muhiimsan yuu ahaa Chad Sharon. Maanta waxaan eegaynaa kiis qalbigaaga ka dhigaya mid barafoobay inta dhiiga uu karkaraayo. Dabcan waxaan ka hadlayaa kiiska dhawaan lasoo gabagabeeyay ee Taylor Sabasinas, taasoo lagu helay inay dishay gacaliyaheeda Chad Sharon. balse intaan bilaabin muuqaalkeena maanta, haday tahay markii kuugu horeysaad soo booqato channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uusan kuu dhaafin. Lacagta iyo shartan nagu dhiirigeli, mahadsanid. Kiiskeena maanta wuxuu geyn doonaa gobolka Wisconsin, gaar ahaan magaalada Green Bay. Wisconsin waa gobol ku yaal waqooyiga dhexe ee Mareykanka, waana mid ka mid ah gobollada xuduudda la leh Canada, kaasoo loo yaqaano gobolkii harooyinka. Dadka ku nool ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaafayaan ku dhawaad 6 milyan. Gobolkan ayaa leh taariikh hodan ah oo ku saabsan warshadaha qashin qubka, beeraha qamadiga iyo wax soo saarka caanaha. Waana gobolka 2aad ee ugu caansan guud ahaan gobollada Mareykanka. Wisconsin waa gobol leh dhaqan iyo taariikh hodan ah, muuqaal qurxoon iyo bulsho firfircoon oo soo jiidasho leh. Magaalada Green Bay waxaa ku noolaa wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Chad Sharon. Wuxuu dhashay September 7, 1997. Hooyadiis ayaa lagu magacaabi jiray Tara Buckingham. Sidoo kale waxaa la dhashay wiil loo yaqaanay Michael Sharon iyo 2 gabar. Chad Sharon markii uu dhameeyay waxbarashada dugsiga sare, wuxuu aabihiis iyo awowgiis kala shaqayn jiray meherad ay qoyskiisa wax ka heli jireen. Dhanka kale wuxuu ahaa fanaan hibo u leh heesaha raabka. Saaxiibadiisa iyo qoyskiisa ayaa ku tilmaamay qof aad u naxariis badan, aadna ay u jeclaayeen inay waqti la qaataan. Balse waxaa murugo leh in Chad aysan waxba ka aqoon noloshiisa khaaska ah, maadaama qoyskiisa uu sir badan ka qarinayay si uu u ixtiraamo qalbiyadooda. Balse inay ogaadaan taas waxaa uga dhaqsiya batay inuu la kulmi doono qof noloshiisa ku soo afjari doono sida ugu xanuunka badan, taasoo magaceeda ahaa Taylor Gonorada, markii dambena loo yaqaanay Taylor Sabasinas. Haddii aad la yaaban tahay sababta magaca uu isku bedelay, taasi micno ma lahan, waa uun kaliya xagga guurka. balse intaanan sii wadin kiiska, marka hore aan fahanno cidda ay tahay Taylor Sabasinas iyo waxa ka dhigay qof aad u xun. Taylor Sabasinas waxay ku dhalatay magaalada Chicago ee gobolka Illinois ee cariga Mareykanka, November 23, 1997. Hooyadeed ayaa lagu magacaabi jiray Marla, aabaheedna Arturo. balse dhammaan qoyskeeda ayay ku weysay taariikh murugo leh. Hooyadeed ayaa u geeriyootay cudurka beerka ee liver cirrhosis markii ay jirtay 12 sano. Iyada iyo walaalkeed waqtigaas waxay wada dhiganayeen fasalka 7. balse macallimiinteeda ayaa u adkaysan waayay dabeecadaheeda oo sii xumaanayay awgeed, taasoo dhaqaatiirta caafimaadka ay sheegeen inay qabto xanuunka dhimirka kadib markii ay dagaal la gashay ardayda iskuulka. guud ahaan iskuulka waa laga saaray, taasoo keentay inaysan ka qalin jibin dugsiga sare. balse Taylor waxay u guurtay Texas si ay ula noolaato awowgeed. dhowr sano kadib, Taylor aabaheed ayaa lagu soo eedeeyay xadgudubyo 2017. ninkan ayaa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay xadgudubyo galmo darajada 2 oo uu kula kacay ilmo yar. balse mar kale masiibo kale ayaa ku dhacday Taylor Sabasinas, taasoo ahayd in walaalkeed uu si naxdin leh ugu dhintay shil mooto. mar kale ayaynu ku laabatay xaruntii nimirka. waxaana la sheegay in aabaheed oo xabsiga ku jiray oo ka walwalsanaa caafimaadka maskaxeed iyo jireed ee gabadhiisa. sanadii 2018, Taylor waxaa guursaday nin lagu magacaabo Warren Chabot. kadib markii ay isguursadeen, labaduba waxay si sharci ah u bedeleen magacyadooda. sidaa darteed waxay qaadatay magaca Taylor Sabasinas. Taylor waxay ku nooleed gobolka Texas intaan oo dhan ka hor inta aysan ugu dambeyn u guurin gobolka Wisconsin, gaar ahaan magaalada Green Bay. waxay bilowday inay gacanteeda ku samayso waxyaabaha la isku hadiyay, iyadoo adeegsanaysa farshaxan cajiib leh waqtigeeda firaaqada si ay u iibiso. inkastoo ay isku dayday inay ka faa'iidaysato hiwaayadeeda, haddana kumaysan guulaysan sida muuqatay waqtigaas. waxayna samaysatay bog ay u bixisay GoFundMe,
kaasoo aad ka arki karto muuqaalkeeda. Hi, I'm Taylor Shaw Business, and I'm a very hardworking, dedicated individual that's broke and really needs money to help get that swole on. So if you could please donate to this GoFundMe page, be greatly appreciated. Thank you. Si kastaba ha ahaatee noloshu ma ahayn mid aad u qurux badan. Taylor ayaa la xiray June 2020 taasoo lagu eedeeyay kadib markii lagu helay inay taageertay dilaagii qarsoona ee Jeffrey Dahmer. Booliiskana ay iska caabin ku samaysay. Sanad kadib 2021 Taylor iyo Warren ilmo yar ayaa u dhashay. balse farxadda dhallaankan yar ayaa noqotay mid soo gaabatay sababtoo maalmo yar kadib Warren ayaa la xiray isagoo lagu eedeeyay inuu maleegay qaybinta daroogada methamphetamine sidaa darteed waxaa lagu xukumay 28 bilood oo xabsi ah. balse Warren ma ahayn mid joojiyay arrinkaas maadaama page-kiisa Facebook uu ku qoray boqor Warren Shabasinas waqti xaadirkan wuxuu ku jiraa xabsiga Dodge County ee magaalada Green Bay ee gobolka Wisconsin. qof walba oo yaqaan ha ila soo xiriiro ama halkan ha igu soo diro macluumaadkiisa. aniga ayaa la soo xiriiri doono isaga oo damacsan inuu online ka sii wato ganacsigiisa daroogada. sidoo kale Taylor ayaa iyana lagu helay inay la shaqeynayso ninkeeda waxaana lagu xukumay 3 sano xabsi guri ah iyo 6 maalin oo xarig ah. balse Taylor ayaa ku dhex noolayd bulshada Green Bay si kasta ay isugu dayeysay inay ka fogaato dhibaatada xagga sharciga iyadoo sii wadatay isticmaalka iyo xadgudubka daroogada. balse waxaa la sheegay in waqtigaas ay baratay Shad Sharon maadaama shirkadeeda iyo howlaha uu qabanayay ay wax iska soo raaceen maadaama la sheegay inuu isagana ka shaqeynayay arrimaha daroogada taasoo sababtay midba midka kale inuu la seexdo waqti badan wada qaataan. xitaa waxaa la sheegay inuu guursaday hal reerna ay noqdeen balse Taylor Shabasinas waxaa qabay Warren. Taylor ayaa u aragtay xiriirka kala dhaxeeya Thyron inuu yahay mid dhab ninkeeda labaadna uu yahay. laakiin nasiib daro Shad Thyron kuma cusbayn dhibaatada booliiska. October 2021 waxaa loo xiray dhaqan xumo iyo iska caabin booliis inkastoo sawirkiisa uu ku dhex jiray faylka booliiska haddana xogo badan oo kale lagama helin dhacdadaas. balse waxaa cad in Shad Thyron uu lahaa dhibaatooyin gaar ah haddana wuxuu ahaa qof qalbi wanaagsan oo qoyskiisa iyo asxaabtiisa aad ay u jeclaayeen taasoo xusid mudan in weligiis dhibaato uusan kala kulmin. February 2022 Taylor iyo Shad Thyron ayaa wada raacay gaarigeeda sidoo kale waxaa ku weheliyay mid ka mid ah saaxiibadiis. saddexduba waxay wada aadeen gurigeeda oo ku yaalay wadada Eastern Avenue. ugu dambeyn si wada jir ay wada isticmaaleen daroogada methamphetamine. hasaatee daqiiqada kadib Shad Sharon saaxiibkiis ayaa go'aansaday inuu aado gurigiisa una baxay. Taylor ayaa iyana isu durtay dawo lagu magacaabo Trazodone taasoo loo isticmaalo warwarka iyo niyad jabka. inkastoo ay ugu hoos jireen inay isticmaasho daroogooyin badan haddana Shad Sharon wuxuu go'aansaday inuu u kaxeeyo gurigiisa si xaaladeeda uu ilaaliyo. markana aan wax idinkaga sheego daroogada ay iibiyaan ee methamphetamine. methamphetamine waa maandooriye khatar badan sharci darana ah waana kiciye aad u xoog badan taasoo si degdeg ah u kordhisa maadada loo yaqaan dopamine. dadka isticmaala ayaana noqda kuwa aad ugu firfircoon xagga galmada isagoona si degdeg ah u kordhiya tamarta iyo foojignaanta iyo farxad been abuur ah. waxayna kordhisaa garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga taasoo sababi karta khatar caafimaad sida wadnaha oo ku istaaga iyo maskaxda oo dhiigga ku furma ama ka xirma. sidoo kale waxaa xusid mudan in dadku ay ka bixi karaan xaaladooda caadiga oo ay u dhaqmi karaan si gabi ahaan baa la aqoonsan karin. dhammaan calaamadahan ayayna lahayd Taylor Shabasinas. sidoo kale Shad Thyron ayaa isna dawadii ay isku duraysa la isticmaalay. ugu dambeynna Taylor Shabasinas ayaa ka gelisay midi qoorta si ay u baabi'iso xadgudubka galmada ay la sameynaysay awgeed maadaama uu nin qabo. balse taa waxaa ka sii daran in waxa ay sameynayso uu yahay dil ayna ku fikirin waxa ka dambeeya. laakiin waxaasoo idil waxaa sababaya daroogadii aan hore idinkugu soo sharxay ee methamphetamine. ugu dambeyn hilibkiisa ayay jarjartay iyadoo adeegsanaysa midiyo jikadiisa yaalla taasoo hoos ay ula degtay gaarigana ku qaadatay. hase ahaatee maadaama maskaxdeeda ay daroogaysneyd aawadeed waxay ka tagtay madaxii oo ay ku riday baaldiga musqusha kaasoo ay hoosgelisay sariirta gurigana way iskaga tagtay. balse Shad Thyron hooyadiis Tara ayaa wiilkeeda weysay ilaa maalinkii hore ee guriga uu imaaday
ugu dambeyn iyana waxay soo aaday qolkiisa oo ku yaalay qaybta kore ee dabaqa, balse waxay la kulantay ayaa ahaa wax argagax leh. Tara ayaa dareentay in qolka wiilkeeda uu wax ka qaldan yahay, balse waxay aragtay shukumaankiisa oo meel hoose yaala, waxna ay ka hooseeyaan. Kor ayay u qaaday, hase ahaatee waa baaldi uu ku dhex jiro madaxa wiilkeeda Chad Sheeran oo la jaray. Tara ayaa u qaylisay ninkeeda, ugu dambeynna waxay garaaceen nambarka gaaban ee booliiska ee 911 isla markiiba. Booliiska ayaa isla waqtigaas soo gaaray guriga, hase ahaatee waxay arkeen baaldigii oo madax ku jira iyo joodariga hoostiisa uu ku jira dhiig fara badan. Sidoo kale baarayaasha ayaa helay xubno yaryar oo ka haray jirka wiilka oo gogocay, taasoo ay weheliyaan 2 midi oo dhiig leh. balse qayb ka mid ah askarta ayaa baaritaan ku sameynayay goobta dembiga ka dhacay. Kuwa kalena waxay raadinayeen guriga Tyler Sabassinas, kaasoo ay heleen gaarigeeda oo banaanka taagan, iyaga oo ka helay wax ku saabsan dilka, kuwaasoo ahaa wax u muuqday inuu ahaa dhiig. Booliiska ayaa xiray laamiga iyo wadooyinka soo gala gurigeeda, ugu dambeyn gurigeeda ayay ugu galeen. Booliiska ayaana gacanta ku dhigay Tyler Sabassinas iyadoo wadata isla dharkii ay wadatay markii ay dilaysay Chad Sheeran, waayo dhidid fara badan ayaa ka baxayay. Sidoo kale gacmaheeda ayaa lahaa dhidid, iyadoo u muuqatay in gabi ahaanba aysan ka muuqan wax walwal iyo cabsi ah markii ay qabanayeen booliiska. Saraakiisha booliiska ayaana si ku meel gaara u xiray Tyler Sabassinas, halka askar kalena ay baaritaan ku sameynayeen gurigeeda, halka kuwa kalena ay isku dayayeen inay baaritaan ku sameeyaan gaarigeeda. Ugu dambeynna gaariga ayay ka heleen mid ka mid ah lugta Chad Sheeran oo ku jirta kaartoon gaariga dhexdiisana taal, taasoo naxdin badan ku sii abuurtay booliiska. Ugu dambeyn waxaa bilowday processkii su'aal weydiinta iyo baaritaanka, balse baaraha ayaa arkay gacmaheeda oo ay ku yaalaan midiyo. Sidoo kale waxay ku hadashay ayaa ahaa wax cajiib ah, taasoo aanan afkeena xitaa soo qaban karin. Si kastaba haatee, Tyler iyadoo iska qoslaysa inta lagu guda jiray wareysigeeda waxay sheegtay in madaxa Chad Sheeran uu ahaa madaxii ugu horreeyay ay jarto, iyadoo weliba ku faraxsan jirkiisa nafla'aanta ahna ay ku samaysay xadgudub galmo. Sidoo kale waxaa cajiib ahaa inta wareysiga lagu guda jiray inay dhahday Chad Sheeran waxaan u fuushanaa sida dameerkii, waxaana bilaabay inaan jiido ama hogaamiyo, ma garanayo sababta aan u joojin waayo. hase haatee dhammaan macluumaadkan aadka u dhibka badan darteed, haddana Tyler Sabassinas waxaa lagu haystay lacag gaaraysa $2 milyan. Warayaasha ayaana soo ururiyay caddaynta, balse maxkamadda ayaa amartay in Sabassinas qiimeyn lagu sameeyo maskaxdeeda. Balse bishii May 2022 waxaa la soo xaqiijiyay inay fiyowdahay, maxkamadna la soo taago. balse xaakimka maxkamadda ayaa dib u dhigay maxkamadeynteeda, waxaana laga dhigay Oktoobar 2023. balse November 2023 ayaa loo arkay inay time u tahay in la soo saaro maxkamad. Qareenada difaacay waxay ku doodayeen in aanay dambi galin sababtoo ah waalida awgeed, iyagoo sheegayay inay qabtay xanuun maskaxeed oo aad u daran, haddayna u tahay inaysan maskaxdeeda fadhin. Qareenada difaacay Tyler Sabassinas waxay sameeyeen dadaal ballaaran si ay u caddeeyaan inay ahayd mid aan dambi lahayn sababtoo ah xaalad caafimaad iyo mid maskaxeed awgeed. Queen Julie oo ka mid ahaa qareenadii difaacay Tyler Sabassinas wuxuu soo jeediyay inay qabtay xaalad maskaxeed oo ka horeysay dhacdada. Si kastaba ha noqotee, Tyler Sabassinas ayaa weerartay Julie inta lagu guda jiray maxkamadeynteeda bishii Febraayo 2023, taasoo keentay in la bedelo qareenkeeda kadib markii Julie uu iskaga tegay kiiska. balse waxaa lagu bedelay Christopher Volek oo isna ku dooday sidii Julie. Si kastaba ha noqotee, garsooraha ayaa diiday arrinkaas. Difaaca ayaa mar kale ku dooday in Sabassinas aysan dambi lahayn sababtoo ah inay qabtay xanuun iyo xaalad maskaxeed oo aad u daran. Difaaca ayaa sidoo kale sheegay in methamphetamine iyo maandooriyaasha kale ay sii xumeynayeen xaaladeeda maskaxeed. Si kastaba ha noqotee, qareenada dowladda ayaa soo bandhigay caddeymo muujinaya in ficilada Sabassinas ay ahaayeen kuwa si cad u tusinaya inay og tahay qaladka ficiladeeda, sida jarjaridda meydka iyo nadiifinta goobta. Garsoorayaasha ayaana u baahday kaliya 30 daqiiqo si ay ugu heshiiyaan dambiyada lagu soo oogay, iyadoo maxkamadda lagu soo bandhigay caddeymo naxdin leh oo ay ka mid yihiin qiraalka Sabassinas, sawirro iyo faahfaahin sida ay u jarjartay Tyron kadib markii ay dishay.
garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale diiday dooda qareennada difaaca ee ahayd in Sabazinas aanay dambi lahayn sababtoo ah xaalad caafimaad iyo mid maskaxeed, taasoo ay ku doodeen in methamphetamine iyo daroogada kale ay sii xumaynaysay. Ugu dambeyn, Taylor Sabazinas waxaa lagu xukumay xabsi daa'im, taasoo aan lahayn suurtagalnimada in laga cafiyo kadib markii lagu helay dil ulakac ah, jirka oo la jarjaray iyo kufsi heerka 3 ee Shad Thyron. xukunka ayaana dhacay 26 Sebteembar 2023 kadib maxkamad socotay 3 maalin. Daawade ma kula tahay in Taylor kiiskeeda si qaldan loo baaray, mise u malaynaysaa in waxaan oo idil ay u samaynaysay sabab la xiriirta dhanka daroogada, mise daawade waxaan inay ahayd xasidnimo u gaar? Fikirkaaga qaybta hoose nagula wadaag. waad ku mahadsantahay la socoshadaada.